محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعين تاجنا هاي قابتي دجال وخد عين لفتة بين تاجنا هاي هلقى أمريكا شبه غير فيها له وعقوها سن حمزة بن عباس رضي الله عبد المطلب رضي الله عنه. حمزة بن عبد المطلب عقوها سن نبي قادر كرما يا مصعب يا رجي كلا تضرات ما ألقى عقوها سن لما قبرهم بين كوارك دونا وده هذا كويا له وحمزة يا مصعبة. هلقى اللي تاجنا هاي وعيد موجهاتي أمام مقدمتي عيدا كهاي هلقى عيدا كورنتي صدقال كجلي ciidanka bartankiisuna halkaa saxaabadu ku dhimatay waa sida tilmaanta lagu bixiyo halkani waxay halkii gaalada lagu jabiyey labadan buuradaynu arkayno ayaa lagu tiiriyey oo dhabarka loo saaray maca dumarku halkan ay ka qaylinayeen Hind ibn Utba gabadhii la oran jiray halkan ay ku lahayd markaa gaalada iyadoo soo celinaysa suulayaal yahow noqda ku lahayd iyadoo taagan oo la lahaa markaa ay ragga soo celinaysay dagaalku halkan uu si ballaaran uga dhacay nabigu calayhi salaatu wasalaam buurtaa yar arkaysaan ee dadku ku taagan yahay وابورتي وصاري كرجوجها الصومالي كرجوجها لنا وعنو كل هدي أركتان يضون على كلا دوستها نوي منها وابورتا ير خالد بن الوليد رضي الله عنه يمكن هو مسلمي مركع قلبها يعيد أنه وصلها على رجال سواه معي ودمعين ودشة كسوه دبر شريو مركو أركين وقارد سارين وسكان مغلي ما صدحات كيف مركو أركين ياعين وأي سودة هدقين وهل كانوا سودة هدقين أيو صحابي عيدا كاوتي إيو إنتي هدقين سودة marka ciidankii xagga u jeedo saxaabadiina ka sii daba jeedo ciidankii gaalada markuu dabada kaga yimid maxaa dhacaya way jabeen marka saxaabada halkaas ayaa lagu jabiyey waana halkaa waxaan dejiifo waa halkii dagaalka ugu adag uu ka dhacay ee 70 saxaabi lagu dilay in 70 waa lagu dhaawacay sidii badar iyaga 70 loogu dilay 70 laga qafaashay 70 loogu dhaawacay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kii ilaahay quraanka ku tilmaamay haddii aad tan ku guulaysateen inta hore lahaydeen sidaa awadeed halkan uu dagaalku ka dhacay nabiga calayhi salaatu wasalaam eeriyada inta uu tayar sukadeeda misoodeeda uu taagteeda ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam dhaawac ka gaaray oo lagu dhaawacay waxaana loo leexiyay beer dhinaca marka aynu ka arki doono oo markaa tibiri ku taalo wali sida markaa niman culimo weydiyo reer madiini sheegeen beertii rasuulka la geliyay beertaasay noqotay rasuulka sallallahu alayhi wasallam halkaas markii dhaawacaas ku dhacay la yidhi qutila muxamed waa la dilay walaalayaal marka halkani meel aad u sahlan ma aha waa buurta aad u aragteen waa buurta dhowr xadiis bay ku jirtaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo tilmaamay in qaar ka mid ah muslimiintu waxay sadaqadaysteen mudkooda ama labada gacmood mudkooda ay sadaqadaysteen inay ka fadli badan tahay buurta Uhud waxa ka mid ah gaalada marka qiyaamaha la calaabiyo gowsahooda buurta Uhud la leekaysiinaya si naarta loogu shiilo buurtan wuxuu tusaalooyin badan baa rasuulku bixiyay sallallahu alayhi wasallam waa buurta idin sheegay rasuulku isagoo fuushan وكل دشالة واحد صار النبي يا شهيد يا مركز صديق ما صار رسولكم عليه الصلاة والسلام محضر وشعلي أنا وين شعشاي بورتا وبورتا رخلة سلا ولدين في بنين ولا جويي وهالكن تاجي بوربا يعيد لكن أنت ستصار الله هرك وبرت بورتي مركز لقى صور كلا جي يمي قالوا لقى صور كويه سلا مركزين لو فهموا بورتي اللي نقدر بالكلينو وبورتا ير يعني ممكن إن شاء الله تعالى في دوام دوما وبورتا ينسى عين دوما وبورتا دحرينا ورسولك أديرك يقولي كوا سيد حمزة سيد الشهداء وصحابي مركا أي بيركي صلى الله عليه هند بن عتبة أي مركا بيركي سنتي ويا بهد مدلي يا أديرك يا ولا الكذبة سواء مركا تاريخ القرآن سلا أولاد مركا مسلمين هند قال رسول قصاوة أجي أو أكلة الكبود بوري مكوي بيرك يقولي شيء ما صار مسلمين مركا يوم قبر سهلا ما يهين قبر الله قبر عيدا كان النجار قليل سنه سفيان باقري مركا واتي مركا يضرب كل قاطع ورحم من يجي رحم كجويانا اللي جت جبال يعني قال الدين كرات بشيء وجهدا مركا قبر مركا أبو خطر به عيدا كان مركا ويتقال قليل سمان انت أيضا سلا أول آخر كوا صوم مسلمين خالد بن الوليد يسوي عيدا كمركا يشبيه هو صوم مسلمين وروحوا النقضين نيجي دوري سكاشن كدقال قال ما كنا نهيج أنا شبيه إلى رسول إلى عمر بن الخطاب على السلام مركي ذنبه أولى النصر بيد الله لا بيد خالد يعني أنت خالد نصر وكنا شرو جوشو إلهي ما جوش إنه هيبوني markaasuu casilay markaasuu yiri khaalidna muu xanaaqo mooran wasiirka laga qaado way xanaaqan dadkeenu markaasuu yiri wallahi sadaqa ibn khandala runbuu sheegay buuni annasru bi yadillah nasrugu waa gacanta ilaahay buu ku jiraa buuni marka walaalayaal halkan waa taariikh waa meeshii rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam lagu dhaawacay waa meeshii dhiiggiisa ku daatay هذه